السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمة الصوماليات ملو بأدويدة كجوكتان وحنا إذن سلامة تحية الإسلام وحنا نذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليك الصوماليات أدون وينها ملو بأد كجوكتان وإذن سلامة صوماليا ما أنت وحاجرتو صومالي والبو او صومالي شيكتو هداد صومالي تاي واحد وقتا قبيل انو يهي قرندمس قبيل ميشو ندقي وات وجدان قبيل وحو يهي واركني واندللني الا ايمانتانا كتاغنتيين قبيل هذا قبيل قرن مكة انو قرن كدومياه ان كان ولالكيغا عبد الشكور وحانو شيغيا معارض دونتو هو لكن فرقلين دولتنا الشعب كصوماليات كدا هداد كفاني سيد حوق قبيلا كسو جيدا وحوق بدن حوق قاقو ما انت ود ماضي شالي هداد حوق لهيت ما انت حوق مليهيد شعبك الصومالية دون وحي كجيدان اي اجيستين هل جيهو هل ميلان اجيدنا ماشي ان اجيدنا ميل كلام معها والنبط ينل madaxweynahan aad mooshinka ka keenteen markaad aragteen maxaabiistii ku xirnayd India maxaabiistii ku xirnayd Libya maxaabiistii ku xirnayd Uganda maxaabiistii ku xirnayd Ethiopia maxaabiis walba Soomaali dhibaateysna markii dhibaatada laga saaray oo wadanka la keenay markaad aragteen wadankii inuu isku daba dhacayo wadankii inuu uu fiicnaanayo wadankii inuu wax walba uu yahay wadankii wanaagiisa uu si kordhayo jidadkii la sameyn rabo wax walba la sameyn war Moryaan ma rabo Moryaan nabadda maxaad u diidaysaa tuugyahow nabadda maxaad u diidaysaa nabadda waxaad u diidaysaa guri aad leheenaad ku jirtaa dhul aad leheenaad haysataa xoolo aad leheenaad haysataa hadda waxaad ogaataa Moryaan annaga haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed idima baahani Moryaan uma baahani Moryaan waxaad gashid iyo waxaad gudid waa ku aragnay weli waa taagan tahay anigu haddaan ku ahaan lahaa Moryaan cabaayad inaan qaato iyo indha shareer shacabka Soomaaliyeed ma hor istaagi lahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan ku leeyahay gadaal raac asalkaaga waxaad tahay bal isxisaabi inta lagu xisaabin mucaarad maxaad ku tahay mucaarad waxaad ku tahay waxaad og tahay haddii dowladdan ay toosto adiga iyo waxa kula mid ah in laga qaadi doono hantida dowladda iyo hantida dadka waad baqaysaa waxaad ku baqaysaa in hantida dowladda laga qaado daraad waxaa lagu gurigaaga waxaa laga qabtay intaasoo milyan oo dollar intaad ka keentay mayaadaad leedahay shirkada mad leedahay diyaarada mad leedahay waxaad ogaataa qaska Soomaaliya adiga iyo odaygaas fadhiilaha ah ee Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdo ayaa ka dambeeya qarxii Muqdisho ka dhacay adinka ka dambeeya ummadan dhimanayso adinka ka dambeeyo labadiina Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur been baad haysaan annaga dawladii hore ka dhacsanay wadanka dawladii hore wadanka waad ka dhacsatay maxaad faa'iidaad keentay kufsi dhac boob iyo dilad keentay wax laga faa'iido male annaga shacabka Soomaaliyeed haddaanu nahay waxaanu baahannahay nabad iyo nolol وانا كو قناعساناي مدحوينه فرماجو رئيسل وزاريسا رئيسل وزاره انا ولي waxaan u sheegaya xildhibaanadan tuugada ah ee meesha ku fadhiya boqolkiiba 40 ee laba afloolaha ee lacagta lagu iibsado jeebka marka loo bixiyo waxba ogeyn iska ilaali intaas ay sheegaya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh